asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal waa salaamintiina meel kasta aad dunida ka joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijkeena maskax godol. mawduuciisa maantana waxaan ku soo qaadan doonnaa 5 qodob oo lagu gaaro horumar ganacsi. haddaba daawasho wacan. Soomaalida waxaa lagu amaanaa in ay yihiin dad ganacsi ku wanaagsan, balse inta badan ma lahan aqoon ganacsi oo shahaadi ah ama waayo aragnimo caalami ah oo dhanka ganacsiga la xiriirta. Ganacsiga laguma dhasho ee waa la noqon karaa haddii aad la timaado wadooyinka loo maro, taasoo kugu hagayso in aad noqoto qof ganacsiga ku xeel dheer. Haddaba, 5tan qodob waxay kaa caawinaysaa in aad gaarto ama aad samayso horumar ganacsi. Qodobka 1, rabitaan. Qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxaa lagu yaqaanaa in uu marka horeba leeyahay rabitaan weyn oo ku aadan fikradiisa, sida uu guul u gaari lahaa ganacsigaas, sida uu ku horumarin lahaa iyo jidka uu u mari lahaayba fikradiisa ganacsi. Waana qof jecel waxa uu sameynayo isla markaana doonaya in uu ka miri dhaliyo. Qodobka 2, aragti dheer. Waxa uu leeyahay aragti dheer oo ku wajahan ganacsigiisa iyo sida uu guul ku gaari karo. Indho la'aan laguma bilaabo ganacsi, waad inaad taqaanaa halka aad u socoto iyo meesha aad rabto inaad gaarto. Taasina waxay keenaysaa inuu guuleysto ganacsigaaga. Qofku waa in uu leeyahay aragti dheer oo qeexan oo muujinaysa waxyaabaha uu sameynayo iyo sida uu u sameynayo. Qodobka 3, waxqabad. Qofka ganacsadaha jecel inuu sameeyo horumar, waxa uu sameeyaa waxqabad degdeg ah si uu guul u gaaro ganacsigiisa. Tilaabadaas oo meesha ka saaraysa inuu dib u dhac ku yimaado ganacsigiisa. Hadal iyo fikrad kaliya meel laguma gaaro ee waxaa lagu gaaraa inaad xaqiijiso hadafkaaga, qorshahaaga ganacsi iyo in aad ka miri dhaliso fikradaada oo aad ficil u beddesho. Qodobka 4, go'aan adag. Waa waxa ugu muhiimsan ee lagu yaqaano ganacsadaha wanaagsan. Waa in uu leeyahay go'aan adag oo aan lahayn kalaabasho. Qofka isla markiiba isdhiiba markay caqabad ka hor timaado ama dhibaatooyin ka soo wajaho horumarinta ganacsigiisa ma ahan ganacsade wanaagsan. Qofka howlkarka ah waxaa lagu yaqaanaa in uu leeyahay go'aan joogto ah, hal adeeg, karti iyo dhiirinaan, iyo in uusan ka niyad jabin fikradiisa ilaa uu ka gaaro. Qodobka 5, waqtiga. Qofka jecel inuu noqdo ganacsade horumar gaara waxa uu yaqaanaa waqtiga iyo xilliga ugu wanaagsan ee howlaha ama shaqooyinka la qabto, xilliga ku habboon ee la suuqgeyn karo badeecadiisa, xilliga ugu fiican ee badeeco la soo saaro iyo xilliga ay jirto baahiyaha badeecada uu gado ee suuqa looga baahan yahay. Waa qof ku xisaabtama waqtiga ee badeecadiisa suuqa qiimo fiican ka joogto iyo waqtiga aysan ka joogin. Arrimahaas oo dhanna waxay ka caawinayaan inuu horumar ka sameeyo qofka inuu guul iyo horumar ka gaaro ganacsigiisa. Qofka ganacsadaha ah waxa uu ka faa'iidaystaa daqiiqad kasta oo waqtigiisa ah si uu horumar iyo guul miro dhal ah ugu gaaro ganacsigiisa. Haddii aad ku fikirayso in aad noqoto ganacsade oo aadna doonayso inaad horumar iyo guul ka gaarto ganacsigaas, haddaba xoogga saar 5 qodob ee aan kor ku soo xusnay.